Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan. Kusoo dhow kanaalkeena YouTube-ka Cali S Online oo idin soo diyaari anigoo ah Cali Maxamed Ismaaciil Baashi. Had iyo jeer kanaalkan YouTube waxaa u barateen in ay idinkugu soo gudbino barnaamijyo aan ku baranayna markaas isticmaalka tiknoolajiyadda iyo qeybaheeda kala duwan. Sidoo kale waxaa soo dhignaa barnaamijyo markaas dhiirigelin ama personal development, qofka iyo nafsadiisa sida u horumarin lahaa, waqtigiisa u maareyn lahaa iyo productive sida u noqon lahayd. waxaa aragnay beri ugu dambeeyay sarakac aad iyo aad ah si dhinaca shareka, like iyo viewska iyo subscribe-kaba aad ay u sarkaceen. waxaa videoga maanta usoo galay waxay tahay kow in aan idin mahad celiyo sida wanaagsan ama engagement-iga aa u samaysaan. maantadan la joogo waxaa maraynaa 991 qof. waxaa dhiman 9 qof oo keliya. waxaa suurtagal xilliga videogan aad duubeyna ama inta diyaarinayna videogan in ay gaarto markaas 1000 subscribe na wax yar ma ahan, waa 1000 qof. haddii diyaarad ama safar la gala laho 2 ama 3 Airbus 360 laba xabo ama 3 xabo u baahan karnaa markaas hadda hal mar tiimka Cali S Online ay wada raacaan 3 diyaarad aan ugu filan oo Airbus 360. marka waa mahadsantihiin. run ahaantii waxaa la dhahaa alcilmu bayna talaamiid. cilmiga wuxuu ku dhex jiraa ardayda dhexdooda. cilmiga ardayda miskaga dhex jira, laakiin wuxuu soo baxaa muhiimadda cilmiga markii la isweydaarsado su-aalo kala duwan. way markaas ardayda ay isku sharaxaan dhexdooda. waxaa laga yaabaa ardayga siduu kuu fahamsiin karo, siduu kuu fahamsiinaya in macalinka aadan u fahmayn. anigana waxaa isku arkaa marka inaan arday ahay. had iyo jeer qaarkiin waxa ay aragtaa inaan macalin ahay, laakiin waxaa isku arkaa inaan arday ahay. markasta su-aal isoo weydiisaan waxaa isku dayaa inaan baaritaan sameeyo oo aa usoo gudbiyo sida aad jeclaan lahaa markaas aniga in lii baro maaragtay barnaamijyada ama waxyaabaha qaarkood aa soo gudbiyo. waxaa kaloo leenahay kanaal kale YouTube oo Cali Baashi. haddaa YouTube qorta kuu soo bixi doono. waxaa barnaa xisaabaha ayaa dadku barnaa. inta ku xiran dhammaantooda waxay ka sameyn yihiin in ay aad iyo aad ugu heleen qaabka aa usoo gudbinayno. waa qaabka aa jeclaan lahaa nafsadeyda in aniga xitaa xisaabta lii baro. ilaa hadda waxaa joognaa basiga. hadda muhiimadda maaha inaan kanaalkaas kale ka hadalna YouTube-ka, laakiin waxay tahay inaan maanta idin mahad celiyo sida wanaagsan aa maaragtay ugu xiran tihiin. waana mahadsantihiin. su-aalahana soo weydiisaan had iyo jeer waa dhiirigelin iyo wax aqoon kororsiga nafsadeyda ii tahay inaan maaragtay soo diyaariyo. su-aalaha soo dirtaan way sii farbataan. markasta aan soo weydiisaan listiga kusii dirsanaa si aa videoyaal kale oo fiican ugu soo maaragtay darno. hadda maantadan la joogo videogii jimcaha lasoo gelin lahaa waa soo diyaariyey. insha allah jimcada markii la gaaro publish ayaa dhigi doonaa. waxaa isku dayi doonaa inaan videoyaasheena xitaa sii badino oo sii dardargelino maadaama dalabaadiina naga soo badatay. aadna u mahadsantihiin run ahaantii. hadda waxaa jeclaan lahayn inaa marka na caawisaan oo asxaabta kale aa gaarsiisaan, sababta wanaagga waa la faafiyaa. waqtigan la joogo maanta 2021 waxaa la jooga waqtigii wanaagga la faafin jiray. haddii ay jiraan dad waaweyn ama dad ay ku adag tahay isticmaalka teknolojiyadda, ha ahaato mobilka ama computerka ama time management ama waxaasoo dhan haddii ay kugu adag tahay, ama haddii jira macalimiin oo rabo in caruurtooda ama ardayda wax baraan, ama waalidiin caruurtooda inay ugu faa'iidaystaan, dadkaasoo dhan oo u baahan teknolojiyadda, fadlan nagu soo xira. haddii idinkan u baahan tihiin ka faa'iidaysta. dadka u baahanna share la sameeya. waa mahadsantihiin inaan idinkugu fogey videogan ma ugu talgalin. wax kaliya aan rabi oo usoo galo waxay tahay in aan idin mahad celiyo oo maaragtay sida wanaagsan aa engagement u samaynaysaan. waana mahadsantihiin. mar kastana ha iloobin wixii talo, su-aal iyo soo jeedin in aa commentiga ama emailka noo soo diri kartaan. mar kasta nala soo wadaag waxaa rabtaan inaad barataan. insha allahu diyaar waa idin soo gudbin doonaa sida ugu macquulsan oo ugu sahlan. waana mahadsantihiin. dadaalkiinana meesha ka wada, maalinkiinana ha idin wacnado. asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.